dhammaan marka hore waxaan salaamayaa ummadda islaamka adduunka meel kasta ay ka joogaan oo waxaan leeyahay caalamul islaam ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr sanadkan sanadkiisa ilaahay nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ilaahay ha inoogu gaarsiiyo intan xigta waxaan salaan u dirayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed adduunka meel kasta ay kaga nool yihiin waxaan leeyahay soddonka beri aad soo soonteen ilaahay kii idinku dambi dhaafo ilaahay ha ka dhigo insha allahu tacaala waad guulaysateen waa inta soontay inta aan soomanna way ka shalaynayaan maanta waxay ahayd maalintii ciidda weyneed ee ciid ramadaanka ayay ahayd maasha allah dhammaan Soomaali waxaan leeyahay meel kasta adduunka joogaan ciid mubaarak iyadoo oo bishan ramadaan oo ay jirtay marxalad aad iyo aad u adag dadku ay maaragtay ku soomayeen cudurkan oo COVID-19 oo adduunka meel kasta afeeyay ummad balan ama nolol aad iyo aad u fara badan galaaftay ay haddana iyagu dadka ay maaragtay ay baahidii iyo qoraxdii iyo ay ku joogeen maasha allah waxaan leeyahay ajirkooda aad u badan yahay sanadkan insha allahu tacaala ilaahay dambi dhaaf ilaahay ugu dhigo dhammaan oo idin salaamaya tan kale waxaan rabaa in aan tahniyad u diro telefishinka Shabeelle TV waxaan idin leeyahay hawada ku soo dhawaada maasha allah waqti aad iyo aad la idinku baahan yahay ayaad imaateen oo gobolka Shabeellaha Hoose uu u baahan yahay cod markaas asaga uu leeyahay in uu ku hadlo dhammaanteen fikirkeena iyo maaragta xooggeena iyo caqligeena iyo hantideena diyaar baan idin lanahay inaan idinkugu taageerno maadaama aad maaragta aad tihiin telefishin laga leeyahay Lower Shabeelle ama gobolka Shabeellaha Hoose marka insha allahu tacaala waan idin taageeraynaa waan idin garab taagannahay tusaalooyinkii yaryar aad hadeerna tusteena aad iyo aad ayaan ugu qanacnay waxaan leeyahay Shabeelle TV welcome into the air waa idin salaamaya tan kale waxaan rabaa salaan inaan u diro dhammaan ehelkayga asxaabteyda adduunka meel kasta ay ka joogaan waa Cali Cabdi Cumar Cali Boorka oo idin leh ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr ma sha Allah waa maalin aad iyo aad u farxad badan waa maalin loo baahan yahay in dadku ay ciideystaan ay farxad ku wada noolaadaan ay maaragtaa iscafiyaan dambi dhaaf ilaahay uu siiyo marka insha allahu tacaala wax allaale iyo wixii xumaan ah oo adduunka jiray kulley aniga dhinacayga cidaan xumaan u qabaana malaha farxaani gaayaan ah waa iska khoslaa mar kastaba waan idin cafiyey waxaan idin haasta malaha idinkuna waxaan jeclaa inaad cafisaan insha allahu tacaala waa idin salaamaya dhammaantiina saa u dhan tihiin tan xigto waxaan rabaa inaan salaamo baarlamaanka boqortooyada galadi ee BBG uu gudoomiyaha ka yahay Cabdallah Cumar Xalweyste waa ku salaamay saaxib salaan aad iyo aad u qaali ah reer BBG dhammaan waa salaamaya waxaan ku salaamayaa taxiyatul islaam assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan idin leeyahay maanta waa ciideeni ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhayr tan kale waxaan salaamayaa walaalaha jecel goobla gurshantay oo ay maamo u tahay maamadeeda Xaliimo Muuse Usmaan maama Milano dhammaan inta reer gooble waxa waaye this is air hal magaceed mu soo qaaday karo waa badantiin ilaahay idan barakeeyo waxaan idin leeyahay ciid mubaarak dhammaantiinba soo dhawaada madali waa ku salaamay saaxiibkayga tan kale dhammaan asxaab iyo ehl intaan jeclahay oo reer afgooy ah waa idin salaamaya waxaan idin leeyahay salaamullaahi calaykum assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ciid mubaarak maanta waa maalin aad iyo aad u farxad badan waa maalin ciideed telefishinka Shabeelle TV Lower Shabeelle TV waxaan idin leeyahay soo dhawaada hawada ku soo dhawaada waan idin soo dhaweynayaa aad iyo aadan idinku mahadcelinayaa ragga isku xilqaamay in ay maanta codka reer Lower Shabeelle ay ku hadlaan ma sha Allah oo ay ka turjumaan dhibaatada iyo waxyaabaha oo gobolka ka jiro waa soo dhaweynayaa markasta waxaan leeyahay welcome to open hand gacmo furan ku soo dhawaada waan idin taageersanahay waan idin la jiraa idinkaan idin ahay hadda waa kaas ah ciid mubaarak idin leeyahay kullu caam wa antum bikhayr